halkan aan ku suganayo bartamaha magaalada Burco haddaba Burco maxaa ka dhacay waxa saacadihii ugu dambeeyay hadalhayn badan dhaliyay gaarigan iga dambeeya oo ah taalo cusub oo shalay laga sameeyay magaalada Burco gaarigan ayaa la sheegay inuu ahaa gaarigii ugu horreeyay oo kooxda Aslam ama halgamayaashii Aslam ay sameystaan ay ku dagaalamaan haddaba dadweynaha ayaa si kala duwan uga fikir dhiibanayay social media ayagoo qaarkoodna aaminsanay inuu gaarigu ku celinayo Burco ama Somaliland dhadhowr isteetankii halka dad kale ay aaminsan yihiin astaantii ugu quruxda badneed ee Burco loo sameeyay tahay Naasir walaalo walaalo waxaan ku soo dhaweynaya Burco media su'aashan galabta ku weydiinay horaan sac waxaan iga dambaysaa astaantan cusub oo shalay lagu soo kordhiyay magaalada Burco walaal soo arkay astaantan gaariga wallahi astaantan horta waa Aslam gaarigii ugu horreeyay ka bilowday baa la yiri duniduna inay hore u socoto weeyii dhowr iyo 30 sano kadib in gaari meel la saaro la yiraahdo waa beeriga dagaalami jirnay waa laga soo gudbay 2015 baa la marayaa Aslamna de waxay ahayd niman soo halgamay oo dalka u soo dagaalamay madaxweynayaashii Aslamna way soo mareen ka soo midka aha inay dadkaas oo kale xuquuq gaar ah u sameeyaan bay ahayd naafuubay laakiin in dadka wax baranaya ee aqoonta leh jaamacadaha dhiganaya iyo bilicda magaalada hadda fooqan oo kale kama xishoon international hotel baa laga marka waxaan oo kale laga hortaago 80 kilo isticmaaliyay de horumarkay ayay ka hor imanaysaa maxamed abiib oo kale waa kala amaanba kama jiro waxa cadeynaysaa qori bay markiiba saareen waa xildhibaan qaran xaq buu leeyahay inuu sheego meesha aan amaan ka jirin waxay reer Burco inay yiraahdaan madaxweynaha security iyo wax walba gobolka in loo tayeeyo in laakiin markii maxaa iska surma de waa laga yiri wacan yahay marka dalka ardaydu jaamacadaha ay dhigteen 2015 baa la marayaa gaari meel la suro la yiraahdo waxa suuqii dhowr iyo 80kii horta dadka suraya dadka aqliyadooda ku ciyaarayaan iyo ardayda jaamacadaha dhiganaysa dadka aqoonta leh waxa loo baahan yahay wax qabad horumo socod dalkii la xorey inaga haysana cidalkooda la qaadaysaana ma jirto qaatuma state ba dhulbaanta tuuladoodii ku hostay qof Soomaaliya hagaagi mayso Soomaaliya noqon mayso marka wax allaale wuxuu noo soo kordhinayo aanu garan maayo waa dib u dhacban aaminsanahay in waxa soo kale aan dadka la horkiinin dadka qalbiyadooda aan Aslam tahay waxa laga gelin aan waxay dhacay la xasuusin in hore loo socdo waayo dad baan Aslam ba ku qanacsanaynte Samaroon baa kula joogta dhulbaanta kula jooga gudabiirsi baa kula jooga gabooya kula jooga dadka noocaas oo dhan baa kula jooga 1991 baa Aslam tuurna Somaliland la yiraahdo inuu samaysan oo 60kii ictiraafku Ingiriisku siiyay markii horena inaga la waalano xamar la aadnay iminkana la soo noqono dalkeena inaga haysana dhaqaalaha dalka yaalaana maanta maalin ka badan yahay berigi Soomaaliya 18 warshadood lahayd maanta ka tayo badan tahay wadanku ka tayo badan yahay waayo cashuurta qaadka iyo sigaarka iyo wax walba dadka bada waa la baadha dawladdu waxa inay ka tayayso weeyii laakiin waxaan oo kale waxaan gobolkana dib u dhac ku yahay Aslamna in mushaar loo qoro weeyo la siiyo hadaladii maxaa abiib ka soo yaray tan bacdeen waayo waa xaqiiqo sheegay maxaa abiib waayo hadii amaan kama jiro markiiba waa loo jawaabay qaar baa u jawaabay iyadan barasaa ku jawaabin taliyii gobolku jawaabin markiiba dad SSB baa u jawaabay oo ilaa ma anaga car maba soo gali kartid baa leeyahay xildhibaanka qaranka marka miyana hayna amaan kama jiro waa xaqiiqada waa cadaan mar hadii xildhibaankii la leeyahay ma soo gali karo gobolka yaa xildhibaanku aniga uu mitala kaboor ma joogana waa mitala waxaan u doortay waxa weeye in xuquuqda dadka iyo shacabka iyo danyarta uu ka shaqeeyo laakiin inuu iska fadhiyo meel taagnaado anigu ma dooran xaq buu leeyahay wax kasta ugu mitala aniga maxaa abiib aqad ma santa walaal haye walaal soo dhawaad magacaaga wandhow waxaan arkaynaa saacadii u dambeeyay astaantan cusub lagu soo kordhiyay magaalada Burco saad arkaysaa adigu rayhaanteeda haddaan ka hadlo intaan garanayo dhulkan aad arkaysid ee hadda aad ka dhexadlaysid waxaan isagoo dhul burbursana oo daaru iska burbursan yihiin meel kastaaba ay kharaabada tahay iska burbursan dadkan aad arkaysid hadda halkan ku sawiran Axmed Siilaayin baa ka garanaya oo inta kala garan maayo bal wixii kale idinka dadweynaha weydiinaynaa dadkana waxaan leeyahay in bal lamada horta la ilaashado wixii horena laga digtoonaado kulata astaantan cusub Burco lagu soo kordhiyay Burco horumar u tahay mise kulata dib u dhac tahay
tani horumar bay u tahay oo waxay ka digaysaa wixii hore dhacay inaanay dib u dhicin waayo qofka wixii hore soo sameeyey markuu arko wuxuu xasuusanayaa murugiyo waxbuu iska xasuusanayaayo wuu ka digtaanoonaya wixii hore intaasun bay u tahay waa muhiimtaas adeer magacaaga deeq baan deeq aadan maxamuud bale deeq aadan aad baan ku soo dhaweynaya su'aashan ku weydiin xoraansa bal astaanta naga dambayso shay lagu soo kordhiyay magaalada burco sadarkiisa adigu astaantan burco lagu soo kordhiyay horta marka ugu horeysa horraameed dadkan oo ay dhaleen horta way noolyihiin waxa weeye waa laga naxayaa ha laga naxee maadaama ay dhacdayba waxa weeyaan waxaynu la dagaalanay Soomaaliya ahayd maanta waxaynu maraynaa 35 sanaynu maraynaa in dib laynoo celiyo ma hayn hore laynoo wadaaba wanaagsan waxaan ka codsanayaa ninkii halkan baasha ka taagay eerade inuu iska daayo taaladan uu meesha ka taagay ma wanaagsanee horeynu u soconaayo dad waxaynu noqonay waxa weeye dawladda ciidamaynu dhisannay security baynu leenahay madaxweynayaal baynu soo maray cid walba waynu leenahay waxaan anigu jeclaa oo aan anigu arkay dad ka dhintay ee meesha lagu soo sawiray ee dhintay dadkii ay dhaleen horta weynu wada nooliyeen nin walba uu ka naxaya oo badbayda ka tageen qof kasta markuu sawirkii aabiyo 60 ka dhintay meesha ku arko wuu ka naxaya mid kale waxaan leeyahay waxa weeye raggii SNM ee wadanka u soo dagaalamay wax dhintay iyo wax noolba la xuso ninkana kuleyba marka saa u sii eegana ninkana waxyaalo fara badan oo dadka ka dadnaa iyo dadka tusay ayaan anigu isiri ninkaasaan sameeyay qaar baa curyaamiina qaar baa reerahoodii maanta ay wada baqteeyaan qaar baa gidaarada ku waxa weeye ku waashayba qaar baa markii ay waraabayaal cuneen markii ay arkeen inaan cidiba u soo jeedin marka waxaan ka codsanayaa madaxweynaha dalka imka qabsaday inuu dadka hoos eego Soomaaliya waliba Soomaaliya su'aalood baan leeyahay marka ugu horeysa horraamid horta dad kala go'ay baynu waanaynu dagaalanay idinkuna dawlad baan dhisay aniguna dawlad baan dhisannay waa nimayo naamaan galiya magacaygu Axmed Maxamed Cabdi Cali Axmed walaal burda media ku soo dhaweynay su'aasha waxa qoraansa bal astaantan cusub burca lagu soo kordhiyay aragtidaas aad aragtaa aragtidayda aad iyo aad bay horta u fiican tahay astaantan dimujaadkii meesha kala baxay 3 imika u nooli waa ninka saaray wala mustaahid salaxan waliba in lagu eego maaha in wax laga qabto meesha la qurxiyo ilaa soonaha dhan la wada xidho oo magaciisa mujaahidiinta kale dalka iyo dadkaba u soo halgamay taariikhdooda lagu muujiyo raygaas qabaanigu su'aal kale bal qabta fikirka wada aaminsantahay wad raacsantahay waan dhaasanahay markaa waxaan leeyahay afarleedina waan yar tuuraaye bal in yarna waan ku dayi doonaa markaa waxaan leeyahay sanadkii wacnaaye 91dii soo hoyna guusha kolku sanacoo qaybsamay kala guurina saxalkii dhaaxaan samraynoon sugaynay calane sabadoo barwaaqaa Soomaaliland timi saatirkaa ku mahadsha ciidayda saaca leh calankayga saafiya ciidankayga seefta leh madaxdayda wada siman sabadoo barwaaqaa Soomaaliland timi de sanad guura waxaan balleena mujaahidiinta ku soo dhaweynayna hadii kala xabad baa inaga dhaxaysa xabad ma santa magacaaga wala jaamac maxamed cabdi waaniga la yiraahdaa jaamac waad baan ku soo dhaweynay walaalo su'aashan ku weydiinay waxa qoraansa bal astaanta cusub magaalada burca lagu soo kordhiyay gaariga qorka saaran yahay bal aragtidaas aad aragtaa waa anigu halka waxaan arkaa inay dubdhaca tahay anigu abahay burcu kaasay nimankii faqsi la dagaalamay waxa burcu ku dhintay saakan arkay waxaan ku yiri dadka waxa xasuusinaysaan dadkii ka dhintay dadkuna wuxuu badan yahay in halkan la yiri halaga daayo asaanta meesha marka aniga waxay la tahay dad mujaahidiin bay haayeen oo halka dadka ku dhintay bay haayeen dad manfaacadkana waa la cunayay dadku cunayaan aynu aynay dadka ku dhintana way haayeen waxaan ku dagaalamay xornimay doonayeen nimankaana waxaan leeyahay hoos loo eego rag badan wax nool baa jira oo imka curyaama baa jira oo magaalada ku nool ragaas wixii dhintay Ilaahay u naxariisto wixii kalena hoos loo eego baan leeyahay hooyo magacaaga hooyan wax la dhasay Cabdillah sina hooyo dad ma santay su'aashan ku weydiinay waxa qoraansa bal astaanta naga dambayso lagu soo kordhiyay magaalada burco bal aragtidaas aad aragtaa hooyo astaantan anigu waxaan u arkaa inay aragti lagu soo kordhiyay tahay magaalada burco systemkeedu marka horeba wax qurux badan oo Soomaaliya ka soo baxaba burco ka soo baxaan hablaha quruxda badan burco ka dhashaan mujaahidiintu burco ka dhalataa madaxweynayaashu burco ka dhashaan marka waxaan qabaa inay yihiin mujaahidiinta iyo madaxweynayaasha lagu xuseeyo meesha waxaan leeyahay lagu dhiridaan la soo xasuusto marka adigu taageersan fikirkan cusub anigu waan taageersanahay waxaan halkan canaan uga dirayaa madaxweynaha Xasan Sheekh Maxamuud ee arigaygii joojiyay waxaan leenahay Ilaahay baan ku dira hadbaad maasanta soo dhaw walaal magacaaga ku dhahay walaal
waxaan weydiinaya su'aal ka horansa bal sidoo aragtaa gaarigan astaanta cusub ee burco lagu soo kordhiyay astaatan cusub ee burco lagu soo kordhiyay mid macquul ma aha waana wax laga yimi oo dee dhowr qarni ka soo wareegeen ka maanta in maxay tahay odayaal shaarka dawladda sitaanta shaarka dawladda soo xidhaan halka wax ka taageen naw khalad baan aragnaa taan nahay dadka reer Soomaaliland hadda marka maanta fikirkaas anagu meesh lagu soo kordhiyay ma aha mid noqoseeya waa khalad ma aha mid noqoseeya gaadha islaam lagu xoreeyay dil lagu xoreeyay dil lagu xoreeyay laga gudubdiyay ma santolaan wandaway walaal magaca Mustafa Burda Miriam kursi dhaweynay su'aasha waxa qoranaysa bal sidoo aragtaa astaanta cusub burco lagu soo kordhiyay wallahi astaanta aad qalad baan arkaa maxaan ku dhahay walba intii madaxweynaha jiray maxaan ku dhahay dawladda jirtay marka intii hore wal taagi waayay sababta imika loo taagay waxaan ka rabaa dalil ma garanaysaa kuma raacsan marka xukuumadda iyo dawladda cusubtoona dadka fikirka aaminsan gaarigaas astaanta cusub meesha ka sameeyay ma raacsan aad qalad baan arkaa hadda waxaan ku soo gudubnay waxa walaal bad ma santolaan baasha Burda Miriam kursi dhaweynay su'aasha waxa qoranaysa bal aragtida astaanta cusub soo aragtaa waxaan oo arkaa isbedelka cusub ee Cabdiraxmaan Ciro asalaamtii guuleysatay deeguuniyo gobonimo